wasaaraha Jamhuriyada Somalia mudane Xasan Cali Khayri ayaa booqasho ku tagay Wasaarada qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta Jamhuriyada Somalia booqashadan Raisal wasaaraha oo ah mid lagu dardargelinayo hawlaha shaqo ee wasaaradda u haysta qaranka Soomaaliya wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta Soomaaliya Ambassador Jamal Maxamed Xasan ayaa ku soo dhaweeyay Raisal wasaaraha xarunta guud ee wasaaradda inta kadib Raisal wasaare Khayri ayaa kulan la qaatay madaxda kala duwan ee wasaaradda isagoo ka dhageystay mas'uuliyiin kala duwan ee wasaaradda hawlaha horumarineed ee wasaaraddu u qabatay dalka wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta Soomaaliya Ambassador Jamal Maxamed Xasan ayaa ugu dambeyntii kulankan kadib warbaahinta uga warbixiyay waxa uu daaranaa hawlaha ay ka wada hadleen Raisal wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxyaalahaanu ka wada hadlaynay hadda waxa kamid ah waxyaalaha aan rabno sanadkan aan qabanno sanadkan waxaan qabanayno sanadaha soo socdaan qaban doono hatta aan ka wada hadalno qorshaha fog waddanka leeyahay 20 sano soo socdo arrimahaas markii la sugayo waxay u baahan tahay in laga baaraan dogo laga taxadaro si fiican looga fiirsado maadaama toddobaad kasta ay shiraan tubahani xafiiska wasaaraha tub kastana ay leedahay halbeegyo u gaar oo laga rabo wasaaradda kastana fuliso tubahaas wasaaraduhu soo gudbiyeen halbeegyadaasna qorshaha qaranka la soo baxaan sidii loo daadajinayo dadka u tara loo saaro hadii beer laga hadlayo beeraha si looga hadlaa hadii laga hadlayo arimahan xoolaha si loo xoog loo saaro inaan meeshii noqon wax la soo qorqorto oo la iska soo noqoto wixii hirgala oo shaqeeya oo la isku daba joogo la isla ogeey xukuumadda Soomaaliya waxa imaanay wax la siinayo wax waddanka baxayo dhan la socono in mashaariicda waddanka inaysan tuulo kasta dowladda kasta degmo kasta laga fuliyo dadka Soomaaliya marka soo joogaan inay wixii wada gaaraan si xaq ku gaaraan si cadaalad aan u sameeyno adduunku waxay ka imaanayaan dadka saaxiibadana ama dadkan la ganacsano waddankan soo galaadan wax oo loo wada joodo cad oo muddo ku jira noqdaan arrimahaas oo nasabaleena waxaan rajaynayaa insha Allah in saasoo kale noo socdo wada hadallo Maxamed Bashir Nuur Geek Ariel TV